ninbaa inan caashaqo markay arrintii dhan tahay aroos qaban qaabintii inay alkumaan damceen waxay tidhi aadanow abiya abtirsiin malihi ayeeyo walaal malihi ediya abtiyaal malihi meelaan ku aroora male hooyadii dihataanan arag aabihii dusha igu sidiyo dadkii ani ila dhashiyo astaan naxariis ma arag waxa uu sheegay inay ahaayeen sheeko wadaag lahaayeen waqti muddo ay wada socdeen kadibna ay go'aan ku gaadheen inay isguursadaan wuxuu yiri markay halkaas marayso sheekadu inaan isguursano aan ku tala jirno ayaba waxaan soo ogaaday inantu inaanay reerkan ila joogto aanu reerkooga ahayn ay soo korsadeen ay soo heleen kadibna xaaladdu way adkaatay waxaan sameeyeen garan waay inantu waa inan wadaadada maxajabada ehludiina meel alla meel aafto aan lahaynba kadib markaan ku wareeray buu waxaan ula tagay aabahay baan ula tagay marka wuxuu gaaday inanta in reerku ay korsadeen laakiin aanay dhalin sidoo kalena la soo helay marka kadibna aabahay baan ula tagay sheekadii buu waxaan ku yiri aabo qisadaas haday igu dhacday bal ka waran aabahay wuxuu yiri aabo waa inan Soomaaliyeed oo muslimaduna iska guursada aabaday ku qanxisay hooyadii baa laakiin se la soo marsiin waayay buu maxaa aniga ii keenay inanta aan ciideeda la garanayna in adeertaaba joogto in abtidaaba joogto dumarkuna way naga caadifad badan yihiin waa tahay maasadan amankaag bal aniga iyo bulshada inaan nala wadaagto maasadan amankaag waxaan curiyay isla waqtigaasi aan ku sugnaa halkaasi Faraweyne niman saaxiib ahayn oo kamid aha shaqaalaha ayaa waxa uu la wadaagay qisadaas oo runtii aniga aad ii taabatay markaasi waxa uu sheegay inay ahaayeen sheeko wadaag lahaayeen waqti muddo ay wada socdeen kadibna ay go'aan ku gaadheen inay isguursadaan wuxuu yiri markay halkaas marayso sheekadu inaan isguursano aan ku tala jirno ayaba waxaan soo ogaaday inantu inaanay reerkan ila joogto aanu reerkooga ahayn ay soo korsadeen ay soo heleen kadibna xaaladdu way adkaatay waxaan sameeyeen garan waay inantu waa inan wadaadada maxajabada ehludiina meel alla meel aafto aan lahaynba kadib markaan ku wareeray buu waxaan ula tagay aabahay baan ula tagay marka wuxuu gaaday inanta in reerku ay korsadeen laakiin aanay dhalin sidoo kalena la soo helay marka kadibna aabahay baan ula tagay sheekadii buu waxaan ku yiri aabo qisadaas haday igu dhacday bal ka waran aabahay wuxuu yiri aabo waa inan Soomaaliyeed oo muslimaduna iska guursada aabaday ku qanxisay hooyadii baa laakiin se la soo marsiin waayay buu maxaa aniga ii keenay inanta aan ciideeda la garanayna in adeertaaba joogto in abtidaaba joogto dumarkuna way naga caadifad badan yihiin kadib markay halka marayso wuxuu yiri anigu tala way igu xirtay waan iska aamusay buu inantii telefoonkiina waan ka qaban waayay kadib in muddo waxaan isweydiinayay bal qofkaasi inta badan wuxuu isku dayaa ninka abwaankaahi inuu halkan istaago bal isagoo qofkii iska dhigo bal hadii xaaladaas oo kale aad ka taagnaan lahayd baa sidii bal ka waran sidee noqon lahayd runtii waa xaalad adag oo marka la eego waxay salka ku haysaa waa dhaqan aad kadibna qofka halkaasi jooga hadii ay u waranto oo ay u sheegto ay ku tira qof saasaan ahay oo qofkaasi halka kaga dhaqaaqayo nolosha wax mustaqbal aan ka lahayn iyo wuxuu hiigsi leeyahay caruurtiisa hadii uu maxaan idhaahday dhala iyada lafteeda inoogu jirto maxaan idhaahday maansada lafteeda meel ugu abtiriya aan lahayn haduu faraxsan yahay cid la faraxsan aanu lahayn oo kaligaana ma farxi kartid cid la faraxdana aanu lahayn kadib dadku marka ay wada faraxsan yihiin ayaa waxay oranaysaa anigu waa maalintii ugu murugada badan laba kadib qisadu saasay ayay ku timaday saasay ku waan iska geli karnaa waxay oranaysaa marka qisada waxaan u bixiyay ama kaag baan u bixiyay ama kaag marka aad baan ula yaabay run ahaantii waana wax bulshada hadana aad ugu badan waxaan marka amuuraha yaabka badan hadana aadmiga ku badan asaan dib loo arkay an ooda ka soo rogay dad yahow ila eegaani dad baa jira aaxlaho wixii uurkooda jira ilaahuna og yahay inagu ummad baynu nahay islaam ku aroorto oo ibliis u shirqolan wali ibliis baa halka inala maray ninbaa inan caashaqo markay arrintii dhan tahay aroos qaban qaabintii inay alkumaan damceen
waxay tidhi aadanow abiya abtirsiin malihi ayeeye walaal malihi ediya abtiyaal malihi meelaan ku aroora male hooyadii dihataanan arag aabihii dusha igu sidiyo dadkii ani ila dhashiyo astaan naxariis ma arag alkoosha kuwaa cabee nolosha ku adkaatayee ilaahunu og yahay ayaan iigu dhow waxaa laysku kaayo abtiriyaabay leedahay oo abtirsiintayada markay noqoto qolada xamaglayaasha ee derbi jiifta kuwaasaas qoladaasku dhibtayda nimaan ogeyn ayaa amranay idhaha ilwaadsanida walaal markuu halkaa igu arko ina rag inan labisan oo qurux badan ayuu odhanaya heblaayay waad qurux badan tahay laakiin xaqiiqada jirta ma waa laakiin xaqiiqada jirta dhibtayda nimaan ogeyn waa tan ayaa amranay idhaha ilwaadsanida walaal ninkaan ishaaqsanana markuu abtirsa idhahaan ilmada ceshan waaya ka magacaa la soo dhaafo kadibna waxaa ku xigaysa ina ayaa tahay qolamaa tahay kadibna halkaa markay joogto waxay leedahay aniga ee gaar culus gelisa dadkeenuna waaba u sabaysayinoo haddii aan ilaa gunta laysa soconin imka laysmaba aaminayo kadib markaas bay aniga iigu darnaanaysaa bay tidhi haddaan afka kala furana oon xaqiiqada u sheegana markaasuu iga ordaa anoo degan ay cidlo ah ayaan arkayaa intaa bulshadan iyo waxaan aan la noolahay ma arkayo aniga cid ila noole marka qof keligii nool oo cidlo iyo xasaartaala joogo ayaan markaas ku arkaya bilaa axay waan daalanahay qalbigu way ololayaa meelaan ku aguuga male idan markaad yaro murugsan tahay qof baad nolosha aad ugu jeceshahay baa inta badan aad kula taliya ayaad u tageyso inta badan u sheegataa tiraada waxaas ay soo kordhay maxaynu sameynaayo xal buu keenaa laakiin nabar gaaroodii kugu yaalo aan meel loo xalliyo meel alla meel aad ula tagto iyo qof xataa wax kaala qaban kara haddaad mushkilad marka axay waan daalanahay qalbigu way ololayaa meelaan ku aguuga male ilmaha aan dhali lahaa meel ku aroora male isaga laftiisi abtirsiin buu u baahan yahay abtiyaal iyo habaryaro u baahan oo inta badan hadii xaqii aabaa xataa laga hadhow marka xaqii hooyada la weydiiyo waa lafteeda iyada meel loo sii tixraaca male iyadana taa iyada haysata unba kaana hadhow toola haysanaysa waliba ragga iyo habluhu ku kala duwan yihiin waxa laga yaabaa habluhu inay ka dhow yihiin marka dhinac laga eego xagga qalbi jileeca mooyaane tabcan ha laakiin isagu ninkii wuxuu doonayaa abtirsiin ku tirsado kadibna meel alla meel ku tirsado mala waxay tidhi hablaha ila ayniga ah aroos baa loo dhigaa asxaabtuna way timaad ishaaro sanbay dhahaan aniga waa amar alle albaabkayga xidhaan xataa meelahaasi layguma soo casuumo bay leedahay mushkilad aad u weyn oo caqabad qof bini'aadan la soo dirsatay uga adkay weeyaan xataa idan qof baa rajaynaya inuu meel uga baxayo biribad ka bixiyo halkaasaad mariyo saasaad samayn laakiin meelaan meel laga noqdo lahayn ilaa geerida waa sidaa ku sug weeyaan marka waxay leedahay inta ay inani aroos rajaynaysa ee aroos loo dhigayo ee xaflad loo sameynayo intaa anigu midnaba kuma jiro bay leedahay bal waxa laga yaabaa inanta ay la saaxiibto xataa markay ogaato ama reerkoodana iskaga hadh gabadhan lagu daba sawirana iyadii lagu dhaha waa intii hiblaa wala garanaya ka iskaga dhiyaan hadhow lagu odhan iyadna waa saas oo kale qofkaasi aakhirka waxa laga yaabaa inuu nolosha xagga dambe inuu ku arki doona iyada oo gabadhana ay gabadha ehludiina tahay oo qofka diinta qabata marka waxay leedahay hablaha ila ayniga aroos baa loo dhigaa asxaabtuna way timaad ishaaro sanbay dhahaan aniga waa amar alle albaabka iga xidhaan islaam saxa baan aho weliba ashahaad qira maxaan aadmiga ka galay balana maxaan sameeyey bal maxaad ku odhan mushkiladan dhacday anigu mas-uulba kamid waa qadar loo dhacay marka maxaa liigu diidan yahay ilaahay quraanka wuxuu leeyahay walaa taziru waasilatun wisra ukhra naftan baafti naf kale dambiga qaadi mayso laakiin waxaad moodaa halka mahmaadii Soomaaliyeed ahayd dab munaafaqshaday muumin baa ku gubtay ay iyadu ku gubanaysaa oo qof hore dambi u geystay ay u shirqoolantay iyaduna halkaasi ay u xadka xidhantay lugaa uga xidhantay waliba mushkiladan dhammaanay xaqaygan amaahda galay waliba inkiraad ku daray astaghfirullahista oo agoonta xaqeeda guda wasiirkii oran lahaa afkaygana ku hadlila ay aakhira ku maqan cid ii hadasha xataa ma shaqto xaqaygii wala amaahday waliba wala inkiray haddana cid ii hadashana ma jirto cid ii hadashana tana ma joogto
آخرته قف آخرته جنا مسنق وحن اللي انتيذا قبي أيانك أيان مراري إذنا أي آمس أران هذا ويدو ما أنت هرنا لك كأوي سبيل هذا حتى إسكا مستقيل كالكحلة ولا الآمس سامر إسكا إذا حتى كم أرانس كم سود الاستاجس مركا در الله وجد شيء وهنتا أو بيركو كلا دلائع وكارب إسكا آمس هل كي بين التاجن تاع أرنتو حتى وهنتو حتى يوحيسو كرنس waxaan ilintayda qubay ayaanka ayaan mar hore cidina ay aamus oran in kaarta halkan ka galay ayaan wali eegaya yani halkii iga soo geystay anigu waxaan geystay ayaan garan lahaa ayaan wali raadinaya wali marka inankii bay la hadlaysaa dibteedii markay ka soo warantay ayay inankii la hadlaysaa waxay leedahay markaasi walaal waxa soo dhibi way ku soo dhaxeen adigay maanta ku taagantahay adiguna cidlaha iga tagnahay iga dhaqaaqan bay isaga oranaysa waxay tiri aadanow allaan kugu dhaariye marka la aadnahay irdhay cidla aadnahay iga tagin waxa noqon oori wacan walaal aadnahay irdhayn inaan afar dhaan noqdaan abaalkaagana ka dhigi walaal aadnahay irdhay waxa doonta ayaan ku sameeynaa walaal cidladan aadnahay iga tagin marka la yana sidiis u murugooni marka isagiiba soo noqday isaguna uu jawaab celinay wuxuu yiri oodantaye maxaan aabahay ku oran aabahay imika markaan u tago inaan ma doonayaa ku raado isna wuxuu i weydiinayaa inaan raacib weydiinayaa ha iyana waxay ka soo tafiirteedii wixii warsan weydiinaya maxaan hadaba isna ku dhaahdaa bile marka waxaad moodaa in hebel la gar leh la gar laayt waxay tiri aadanow ninba alla ka dhigay maxaad ana iigu talin إذا ركبها تليها هذا ذيك تشطح حتى أدق أم بقعد أنا كنا هذا يقول تلي نيسا وحو يري الروح أدق إنا تهيوان أجهي إنا نسكا آموسيو إنا نكو إرياب الدرن لابد من ما أول صوت بكرتري بل سيد آنن قلين إنا أصيد هذا سيدنا وحويا هذا حلص إن هدو تقول له يقول هذا نيك كبر داو قبا وكبر عين كنا عرورتيسو وكني وكن oo eeda liilid daba taagnaado iyadna aad bay u culustay u leeyahay marka waxay tiri aadanow Ismaaciil ina miriya abwaankii tima cadiya haduu gaariyo og yahay waxaan boodan lahaa abwaanadii hore jiray inta dhaqan-yaqaanka ahaa maanta haday joog lahaayeen waxaan bay ka oran lahaayeen hayeeshee aynigani abwaan ima sheegino ayaan qura ima hadan kuwa laftooda iyadna ay maxaan dhaday farta ku fiiqsan ay dhalisha marka dabadeetana waxa ay dhibtu halkay ka timiday iyo halkay asalkeegu tahay bay dib ugu celinaysaa maadaama ay tahay qof ahlu diina waxay tiri hadaad aayaadka iyo axaadiista raacaysaan intaasiba may dhaxdaan kitaabka agtiina yaala hadaad isi raacaysaan ilaahay ka yaabaysaan intaasiba ima heshaan إذن إلهي وحو يري ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بلا حتى حسميننا لو بدنا هو دواننا ليري تيبا دبيتنا آيات كي مركل الله دايل صدي أي دبيتنا وحنا دبر دعين بيلادا إلهي مركي ويري إشي نني لابا وأفكينا هذا الكتشرة ترين كأباري كرا دنتينو إيجيو إبليس كهرو لها هيا شيء وأضعنا dad yahow maydaan oran wata arintii fashilan samicna un baatiraadana waanu maqalnay laakiin waa dacnaaba maydaan oran beelada wata arintii fashilan ayaamaha khayrka badan dadkuna ashqaraarsayin allow idil baan idhaa maanta dadku ugu farxad badan yihiin oo maanta ugu naxsan badan aniga maanta ugu murugo badan tahay beelada haddana ifku waa dhaxdene aakhira u tudhaan idhaa kale wala dhimanaya kane waqtiga iska sugo waxba isku soo qadimin baan islaamay asqoobay markii aan imid dunidan ama kaaga badan hadaanan islaam ahayn ilaahay ka yaabahayn hadaanan arwaax la jaro ilaahay diidilayn inaan ajashay iska jaro ayaan ogolaan lahaa axay urugadu badna cid aan ku aguugo on ka aarsa ilaabal karo idaas ba waxaan kugu sameysay balka arko saciidada tiraado walkaas garabale halkaas bay markaa maansadu ku soo gabagaboobaysaa runtii waxay ahayd maanso
aad u murugo badan marka la eegana waxay u dhaxaysay nolol iyo geeri mar waxay islahayd meestisha marna waxay ahayd qof diin loo waxay lahayd bal waqtigaaga sug runtii waana caqabada imika bulshada haysto xallinna u baahan dadkuna ay dhayalsadaan labadan qof ee hawsha isku gutay qofka ka dhex imanaya ay inta badan mushkilad la kulmaysa amba nin ha ahaado ama gabadh ha ahaado marka kullay dad badan way ku tusaale qaadan doonaan oo wax badan bay fahmi doonaan واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عاد وش بصير waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa